بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali Maxamed meel walba joogaan. Waxaa inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. Waxa gabayga maanta leedahay garashada, wuxuuna ka hadlayaa in garashadu aqoonta ka xeel dheer tahay, wuxuuna ku bilaabmay insha Allah sidan. Garashada aqoonta ka xeel dheere, in dheer garadku waa aqoon iskiye. Odayaal aan iskuul abidkood tagin, sow kuwa goor iyo ayaan xalliya wax aqoonyahanku arrimin karin. Sideedaba waxa aayaadka lagu sheegay ulul albaabe. Garaadka Allah bixiya kumanaysta axadku doono. Ninkii aakhiro aqoon u leh ayaa aqoonyahanka runta ah. Aqoonta gaaladu waxay ku abaari lahaayeen in eebbihii abuurtay ku gartaane. Ruux sidii loo unkay inkiri miyaa aqoonyahana. Caqliga lagu kala sasteeyaa laguna asiibaa garashadee. Ugaadhuba way garanayaan aagga cawska u doontaane. Ugaadhuba ilmahooda waxay ka dhex yaqaanaan inta kale. Diinta Islaamkay aqoon ku idishahay. Kitaabka iyo sunnaha udgoone ruuxii aqoon u lahayni. Hadduu alif ka aradan yahay kun buugu aadama qoray ma kordhiyaan ajashee. Garashada aqoonta ka xeel dheere, in dheer garadku waa aqoon iskiye. Odayaal aan iskuul abidkood tagin, sow kuwa goor iyo ayaan xalliya wax aqoonyahanku arrimin karin. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan leeyahay nin indheer garada unbaa garan insha Allah walaalayaal. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.